بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيجا صومالي دن أبدين سلام عليا. حواي وولك مسلح ملاي. waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad u dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kalba si loo dhigayo waxa waaye horta way jirtaa xaqiiqada ah in shalay too shil u dhacay shilkaasi qadar baahed waxa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxa jira macnaheedu idin gaariga waxa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax daawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmo daawac la soo gaaray qaarna waxay adoo kolba si baa loo sheegay arrinkaas waxa waaye laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa waaye aniga maslax mideey ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garanaysiin kulli marka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasinay ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxa waaye qofka bil aadankana hadduu waqtigiisa dhamaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraati ma jirto waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga aan ku geeriyootay Allah naxariisto ilaahay ehelkeygana awal dhigo samriye iimaan siiyo naxariisti jannada ka waraabiyo gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in daaqadii furantay daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqada ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay shantii kale ay saarneed gaariga meeka ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa ay gaarin sharmaaka abdi nasr waxa weeye sagara wax ma soo gaarin oo noo qaba alxamdulillah garaaf ku soo gaadhay midna macalladii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyaadka ayaa wax ku noqotay oo ka geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa Allah oo naxariisto ehelkeygana sameeyay iimaan ka siiyo حواي أنا في كل اللي هي صار إذا كل شيء أنا وقاري مع سارنين واحد يمسك قال الحمد لله أنا على القضاء أنا عارف ما القضاء لكن حولها يكسر يسوق الشوك ينحلن أو هذا لا هذا يوجده حواي صدق له الحمد لله واي أعرف كل اللي شرما الحبس بقدر أنا وحواي تقدر بعد عيو قف قبل هذا كان مفنن هذا أما ما ذهبنا هذا المسير هذا حواي هدوش الدعاء qofka bilaadi waa la xisaabtamaya arrinkaas sharmana ugu xayran yahay wax kale maaha tay gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isagana dad baa dhalay reer ka soo jeeda waxa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la safkartay gabadhiga alxamdulillah waa la aasay gabadhna soo aasnay labadii reerona way wada hadleen waan safkarteen in la heshiiyay oo markii gabadha la bixiyo yaa soo safkartay dhibaato meesha jirana ma jiraan Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bil aadanka markay dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka la alkaaya ama cadowga la noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf lahayn oo lagu yaqaan dad Soomaaliyeed in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fuse laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aad u foolxumay waxaan Soomaaliya u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii boonboonin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u ducayno oo quraan marino ayaa looga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay on macnaheedu waa adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada fiican حواي من ذاك الوقت شرماكه أنا قد صاحبه كل يوم أو دوتين وقف أنا وراءه هي ولا لي نقضي أو القالة إنه نهاي Soomaali shalay shaqmaaka markaan joogto wada aadani inta uu tuugay wax macnaheedu qabiil ama qabiilad oo dhaxsada ma yahay wax horumar noo soo kordhay
يا هاي إنه كذا فرح سنين إن دلكي ولا لهين يتوجه أنا أن يعني دلكي نيلا بعد أكسوري إنه أن سمعتي يقرح دي يا صوبان دينه ما دام أساس أنا يا شرمات أنا يلا واحد شيء سو قارني حدي مرة أنتم تذكر عليهم بمسرح يقرحني أن ده شعب كله يسوي شيء إن حق على بدن أن كل حرين أن ميرا بسمع له إن شاء الله إنه أنا قرح سنة أن دلنتني إذا كنا بعد سوى عبيدنا إن راحيد وحنا شيء سو قارني مركز سجل سوى دمانو إن أنا مركز أن بدل سوى أن دلكي كسوري إنه قرح سنة wax kale lagama ahayn kulleydii dadka aqalka saaxiibka oo fahmayaan arrinkan inaan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagnoweyn noo qorshaysnay inaynu aadno Jubbaland inaynu aadno Khaatumo State micnaheedu inaynu aadno Jigjiga inaynu aadno Somaliland intaba annaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaagga sida adigu labadaas aad ka dhigato wax walba ku noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arinku saas ku jira saas u jira soo duceeyo insha Allah rabbana dhamaanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh